بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى درس وحو كساب سيسي هي مشكلة الأمن الغذائي للأمة. نبتا كساب سيسن isku filaanshiyaha cunnada waan jirin. alasl waxaynu naqaanaa cunnadu inay tahay ghariisa min gharaa'is alinsaan, ama waxyaabaha bini aadamka ilaahay uu ku abuuray, baahiyaha alle subxaanahu wa tacaala waa aadanaha ku abuuray, waana sabab ka mida sababaha ugu weynee biqaa'u ljinsi albashari, in aadanuhu noolaado. إلهنا قرآن كوحو كتلمام يا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. إلهي مركو تلمام يا أنبياء وحل يري كما نيلين جسد آن عنعن، يعني عدوى لبين عنا أباهن تيبا إلهي تلمام يا آذان هكم ده غذاقو الكاسو تشوغا أمنيقونا دوا النعموينka ugu waaweyn way cagsigiisa baqaahi waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhaca, bal aakhira ka dhaca. way ilaahay subxaanahu wa tacaala quraanka marka jannada la tilmaamayo udkhuluha bisalaamin aaminiin baa la tilmaamaya. xawaalay waxaan u malaynayaa dhowr iyo 10 meelood bay quraanku soo aroortay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay tilmaamayo. sida awgeed quraanku waxa uu inooga warramayaa ahmiyada ay shucuubta iyo bini aadamka u leedahay cunnadu, bale wuxuu isku xidhayaa amniga iyo nabadda ummad ay haysato iyo istiqraarka siyaasiga waxa la yidhaahdaa deganaanshiyaha siyaasadeed ee ummadi leedahay iyabuu isku xidhayaa iyo cunnada. walidaalika baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش مركي لا يوم النشر جنيه وعن رب ليه عابدان ربك سبحانه وتعالى بيت كان له كاسو الذي أطعمهم من جوع قاتشك قوديي وآمنهم من خوف عبسنا كنبت قليي. sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyana may ihmaalin qadiyadda tani si xooggan bay u tilmaamtay oo alxayaati alaamina almustaqira, nolosha deggan, wuxuu xadiisku ku tilmaamayaa inay 3 rukun leedahay. 3da rukun ee nolosha deggani inay ka mid yihiin buu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam: man أصبح منكم اليوم آمنا في سربه معافا في جسده أو في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث إمام الترمذي ورنا يا علماء الصحيحة كنت المامين وحنا بقول عليه الصلاة والسلام قفك هوي جيسة أما تلكي أما قريسي أما قوم كيسة دحشوغة سقوا نبض قبه nabad haysto aan cabsi jirin, jidhahaanna caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haystaa. yacni qofkani nabad buu haystaa, nabaddii guud ahaaneed oo cabsan maayo, jidhahaanna nabad kaluu haystaa oo uu caafimaad qaba, bale sheegan maayo iyo xanuuntoona. maalintaana wuxuu cuno ayuu haystaa. ka adduunka ku soo ururay buu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam.
haddaba mas'aladan ay yidhaahdaan mafhuum alamni alqawmi waxaynu nidhi amnigu guud ahaan waa qofku inaanu dareemin cabsi hadaaguna waa waxuu qofka bini aadamku quuto oo uu enerjiga iyo tamartiisa ka helo mafhuum amni alghadaa'i markaynu idhaahno markaa waxa weeyaan qofku inuu helo cunnadii uu u baahnaa tayo iyo tiraba inuu ka haysto wixii nolosha daruuriga u noqon lahaa ama isku filaanshiya inuu halkaasi ka joogo ama baahida bini aadamkee dabiiciga ah ee raashin ku saabsaysan inaanu warwar ka haynin waxay yidhahdaan rakaa'ista tiirarka ay ku tiirsantahay waa saddex bay yidhaahdaan wafrat alghadaa hadadu mid la heli karo cunnadu mid la heli kara inay tahy waanay macduum ahayn ka labaadna waxay yidhahdaan waa alqudra shiraa'iya dadku inay iibsan karaan oo ha la helo cunnadiiyo waa gobolka ama dhulka ha taalle inay dadku awood u haystaan inay gadan karaana iyo inay mustamirtay istimraariya inay haysato oo la rajaynayo cabsi aan laga qabin berri ama bisha dambe ama sanadka dambe in la waayayo inaan cabsi laga qabin haadihi rakaa'is athalaatha bay yidhaahdaan waa rakaa'ista alamni alghidaa'i lilumma haddaba cunnadu nabadda qabta waayo bini aadamka maanta jooga xanuunnada qaarna waxay dhahaan tacafun buu ka yimaadaa poison jidhka gala ama bakteeriyaad iyo viruses iyo wax gala inta badan xanuunnada waa la daweyn karaa bay yidhaahdaan xanuunnada badhna wuxuu ka yimaadaa bay yidhahdaan amraad alistiqlaabiya kuwa yidhaahdaan cunnadaa keena waa xanuunnada musminka ee iminka dunida inta badan loo taaglaayay oo wadna xanuunnada iyo dhiigkarrada iyo macaanka iyo maxaa la ydhahaa dhagxantan beerka gasha iyo kuwan gala maraarada iyo waxa la sheegaya tirada badan la xanuuna iyaga cunnaa samaysa yacni quality-ga cunnada iyo noocay tahay ayaa sababe maaha wax kaloo debad kaaga yimi idan in la helo cunno caafimaad qabta iyo awooddii lagu gadan lahaa iyo istimraariyadeeda in la hela rakaa'isu ah baynu nidhi haddaba dunida gaajada ka jirtaa ma qilatulmawaarid baa ma dunida waxa kor yaalla quudka ah baan aadanaha ku fillayn mise waa su'u tawsiic bini aadamku siduu wax u qaybsadaan cadaalad ku sugnayn labada waa iyama alasna waxaynu leenahay dunida waxa kor saaran ee aadanaha uu ku filan yahay inkastoo aynu ognahay aragtidii wadaadkii ingiriis ee raahibka ahaa ee dad badan oona ay daba socdaan robert malthus markii lahaa dadkaa tiro badanayo dadku si handasiya ayuu tiro badanayaa yacni kow labado afartu saasuu u badanayaa tilmaamayey oo le mawaariduna maba kordhayso markaa wuxuu leeyahay dunida waxay yaallaan dadka ku fillayne aragtiyihiisu aragtiyo cunsuriyo ah dadka badha laga takhallusin weeyaan markaan si kooban u tilmaamo aadanaha dunida ku nool markaa wuxuu arkayaa kawaarista balaayooyinka iyo dagaalada iyo waxa mashaakil dunida ka jira iyo gaajada iyo waxa kani inay tahay naxariis rabbi oo xagga rabbi uga timi ama naxariis bini aadamku isu naxariisto badh laga takhallusay sida inta kale u noolaato asalku saakiin wuxuu yahay saa qur-aanku tilmaamayo wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha baa ilaahay yidhi dhulka kan ilaahay baa barakeeyey barakadu waa maxay khayr badan baa dul saaran weeyaan waqadara fiiha aqwaataha baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala quudkeeda noolaha kor saarane wixii uu cuni lahaana ilaahay baa ku jaangooyey rabbi saasuu qur-aanka ku sheegay walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliilan maa tashkuruun ilaahay wuxuu leeyahy dhulka ayaanu idin makan siinay wajacalnaa lakum fiiha macaayish jamcu maciisha waxa ku noolaan lahaydeenna waa idin dul saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee intaa mahadnaqaysaan baa yar wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha
dunida wax daabada wax socdo korkiisa joogaa ma jiro ilaa ya ilaahay baa isku laazimiyay arsaaqdeedii way taallaa walidaalika waxaan leenahay xataa aqoomaha bini aadamku maalan haddaynu ra'yiga maaltoos tilmaamnay bal kuwa ka gedisan ra'yigoodana aan wax ka tilmaamno الأزمة الغذائية في العالم والوطن العربي نيكا قري محمد خليفة waxau soo naqlinayaa dhulka buu leeyahay inuu ku noolay masaaxadiisu yaabisada inta engegani waa 13.2 bilyan oo hektar inta yaabisada ahi intaa nus ka midi qaabil lizaraaca maaha that means 6 point something ayaa waxa qaabil lizaraaca wax laga beeri karaa inta qaabilka lizaraacaga ahna rubuc ka midi bal rubuc wax ka yara dhaafsiisan 25.7% boqolkiiba 25.7 ahina waa dhul daaqsimeed buu yidhi inta soo hadhay dhulka oo rubuc markaas wax dhimana waxa hadda la beeraa waa 43.5% waa boqolkiiba 3.45 rubicii intaasaa laga beeray saa daraaddeed waxay leeyihiin dhul badan oo la beeran karaa weli baylaha kaasi waa mid culamo kale oo ka mid ah culamada aqoon-yahanada qaar ka mid ah waxay qabaan dhulka aynu ku nool lahay xawaalay 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa bay leeyihiin 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa waliba waa marka la eego bay yidhaahdaan mustawaha nolosha maraykanka ciddii uun aragtay baa aragtaye wax walba 3 laab bay ka cunaan wax kastoo bini aadam liqo yacni koobka sharaabka lagu cabbaa waa mid yar mid dhexe iyo mid weyn dadku ka waaweyn u bay cabbaan mid intan la leeg marka wax walba waa koob intaa leeg haddii lagu eego bay yidhaahdeen mustawaha jabaaniiska dad cunno badan maaha mustawaha jabaaniiska haddii lagu eego bay yidhaahdeenna 107 bilyan oo bini aadam u quudin karaa dhulka waxa kor saarayna bay leeyihin yani iyaga aragtidooda waxa weeyaan sida maraykanka haddaynu boobnana buu leeyahay oo qofkii maraykaniba 3.3 jabaaniis u dhigmaa 3 qof iyo waliba dheeraad jabaaniis intay cunaan ayuu cunaa weeyaan haddaynu sida jabaaniiska bini aadamka u quudinina 107 bilyan iminka 7 baa la sheegayaa soo maaha bilyan dunida inay kor saaran yihiin intaasuu quudin karaa bay leeyihiin haddaynu sida maraykanka ka dhignana 47 culamo kale waxay qabaan oo leeyihiin dhulka la islaaxin karo ee dhulbeereed laga dhigi karo wixii uu wakhtigaa dadka quudinaya ixsaayaadkan markay soo saarayeen malaa 5 bilyan meelahaasuu dadku ahaa 10 adcaafiha buu quudin karaa that means waa tiradii waanu tilmaamayna wax ku dhadhow 50 bilyan oo waliba mustawayaadka sare markay wax u cunayaan bay leeyihiin wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay iftiraadaad cilmiyo kale jiro oo odhanaya waa la ziyaadin karaa masaaxada dhulka ee qaabil lizaraaca oo iminka 6.5 ah waa laga ziyaadin karaa oo dicf 2 laab baa la gaadhsiin karaa haddii waxa hadda jirun si fiican loo beerana waxay gaadhi kartaa buu tilmaamayaa 36 bilyan bini aadama in la quudin karo qolo kale oo culamada ka mid ah waxay tilmaamayaan war ilaa 130 bilyan wuu ku filan yahay yastawcib wayuطcim wayakfi bay leeyihin waa qaadayaa dhulku waana quudin karaa waana ku filan yahay si kale haddaynu u tilmaamno waxay leeyihin war dhulbeereedkaba maaha dee technology-gu uu horumaray bini aadamku mar kastaba horta abaaraha iyo gaajadu casriga hadda la joogo kuwii ka horreeya ka abaariya gaajo badnaan jiray marka abaariya gaajo la tilmaamo bay leeyihin ee bini aadamkuna bidca malaayiin uu ahaa ayay kaga badnayd laakiin nadariyaha maaltos waxaanay u shaqaynayn bay leeyihin hadda xataa technology-gu wuxuu gaadhay dee in wax la beeri karo iyadaan dhulba lagu ridin imika waxaa ogtihiin
in loo beeri karo biyo iyo chemical quroo la isku daro geedka inta hoosta loo geliyo biyo chemical quroo inuu bixi karo aan dhulba lagu ridin oo wadannada qaar hadda wax ku beeraan idan futuuxaadka cilmiga ilaahay bini aadamku markay tiradiisu iyo korodhaba futuuxaadka alla u fura waa tiro badan yihiin waagii hore inta hektarka laga soo saari jiray ama 1 hektar oo dhul intuu quudin jiray imka waxa laga yaabaa 10 laabkeed iyo 20 laabkeed ba inuu quudin karo hadda farsamooyinka cusub ee technology-ga marka la isticmaalo waxay leeyihiin biyaha wax lagu beerayo mid engineer wuxuu leeyahay waxa bay la mitay waa ka radaaca sinaaciya buu leeyahay soo hooyadu markay ilmaha dhasho haddaan naaskaba la nuujinayo waxaan la walwalaaqa la siiyada uu iska noolaan karaa waa saasoo kale buu leeyahay haddayna dhulkaba wax ku ridina biyaheena iyo chemicalka iskaga ridanno waa la beeri karaa buu leeyahay waa soo bixi karaa sida radaacada sanaaciga oo kale u noqon karaa maxaan weedhaha kan u soo naqlinaya u tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa aragtidan tashaa'umiga quusta bini aadamka ku ridaysa odhanaysa dadkii baa tiro bato cunnada yaraanaysa dunidu way madhanaysaa waxba kama jiraan dadkaa tiro batay dhulkuna waa ku filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii iyo idaaradii iyo xooggii lagu maamulan lahaa adduunka ee wax lagaga soo bixi lahaa haddaba gaajada jirtay dunida dul taalla waynu ka mid nahay waxay ku timaadaa bay leeyihin suu'i tasarruf wa tadaalum maamul xumo iyo dulmi bini aadamku isdulminayaa ah sabab almajaaca bay leeyihin si kale haddaan u dhigna bay leeyihin alathra greediness hunguri weyni iyo cadaalad xumo iyo takaaful la'aan cadamu takaamul bini aadamku inuu isdheelitiro takaafulo aanu jirin iyo mawaaridda la haysto si xun loo isticmaalayo wixii la haystay source oo si xun loo isticmaalayo ayaa ah bay leeyihiin asbaab nudra ee ma aha nudro xaqiiqiyo jirta maaha gaajada iyo baahida jirta kuwan baa sababaye may sababin wax la'aan dhulka korkiisa saarane haddaba waxaan leenahay mafhuumkan la yidhaahdo alamni alghadaa'i haddaynu usoo gudubno in si nabada loo helo wax la cuno waa mafhuum qadiim oo bini aadamku weligiiba uu ka fakarayay imikana shuruux cusub oo xadiida yeeshay ummad kastaa inay tijaabiso isku filaanshiiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay baa looga baahan yahay inkastoo iminka jaa'ixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger العرابي الأمريكي سياسة الخارجية الأمريكية يهودي جدا شيء أركتدي سواها كم ده هيدا وأركيي دول كشدال كهستيه وحكر هذا إنرجي دوني ده قبصة بولاي هاي إن أقول وحنو باهنا هنا قبصة بولاي عند الدنيا ده يبين هذا كوح لقيه سأنو كنترول كرنه فعلا فقيه استراتيجي عبد الله النفيسي marka uu ka warramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida uu burtuurka ah maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasat al-khamaat oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sarreenka labadaas ay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyaga soo saara iyaga suuq geeya iyaga iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyaga haysta iyaga leh waxay kale leeyihiin cunada dunida sarreenkana iyaga gacanta ku idinku waxba beerina la yiri haday beeraana suuqa laga saara annaga idin siirina waxa cuni lahaydeen annaga idin ka iibinayna markaanu doonana annaga ku cuno qabataynayna oo ka joojinayna ilaa intaad baqtiyayso ama aad warkayga u hogaansanaanayso saddex shay oo kale uu tilmaamaya markaas oo hubku ka mid yahay
oo majlis al-amni iyo waxaan United Nationska la sheegaya ka mid tahay oo ka mid yahay maxay thaqaafa jaamacaadka iyo cilmiga iyo aqoonta iyo technology iyo media iyo waxa daba socda isku soo duuduub waxaan leenahay maanta al-amni al-qawmi ee ummada ay leedahay al-amni al-ghadaa'i wa qadiya istiraatiijiya waa arrin aan kaftanka gelin waa arrin ummad waliba inay si xooggan uga fakarto ay taagan tahay in dunida wax soo saarkeeda bay yidhaahdaan khayraadkeeda dabiiciga ee bini aadamku soo saaray dunida yaalla boqolkiiba 80 waxa bini aadamku soo saaro boqolkiiba 20 bini aadam ka mid ah cuna inta kale waa la gaajaysiiyaa boqolkiiba dhowr iyo 20 milyan 25 milyan wax ka badanina gaajay u dhintaan bay dhahaan sida markan waxay yidhaahdaan khayraadka waddanku uu leeyahay boqolkiiba 5 baa gacanta ku haya waxaan filayaa waliba ihsaayaadkan inay qadiim yihiin inay hadda ka yartay boqolkiiba 90 in ka badanina yani boqolkiiba 90 khayraadkii waddanka 5 baa haysata markaynu soo dhaafno ihsaayaadka iyo wararkaas oo dhan dunida qadiyadda cunnadu waa jawic kalbak yatbacuk eygaaga gaajisay bay yidhaahdaan ha ku dabagale eygu hadduu dhargada iskaga kaa tegaya laakiin haddaad u sido salladda wuxuu ugu jiraanoo kolbaad waxu tuurayso wuu ku daba soconaya haa hiya siyaasa raashinkee dunida maanta taalla waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qallooc badan bay wadataa oo nebigu muxuu ku tilmaamayay kufrigu faqrigu inuu kufri noqdaa buu ku dhow yahay walidaalik inxiraafaad bulsheed oo ijtimaaciya ka dhasha bal dowladaha waa loo taliyaa oo kuwa yidhahda man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkan wuxuu cuno isagu haysani go-aankiisa male bay yidhaahdaan go-aanka cidda wax ku siisaa leh waxay tilmaamaan gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaabadaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyaga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaaba is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana 3 shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsulintaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo istoodhgareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu istoodhgareeyo meel cunno lagu istoodhgareeyaba ma lihin waddankoo dhammi meel cunno lagu istoodhgareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa
idan meel loogu talagalay cunno bini aadam in lagu stoor gareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda 15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida